dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay duqeymo ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe. war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ayaa lagu sheegay in duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay buurta Cadayga ee u dhow Ceelbaraf gobolka Shabeellada Dhexe lagu dilay ilaa iyo 13 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in sababta halkaasi loo beegsaday ay ahayd kadib markii shabaabku halkaas ay ka abaabulayeen falal amni dari iyagoo sidoo kale isku abaabulayay halkaasi oo qorsheynayay weeraro in ay geystaan. duqeynta xalay ka dhacday buurta Cadayga ee u dhow Ceelbaraf gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa laga maqlay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka oo gacan siinaya ciidanka dowladda federaalka ay la beegsadeen duqeymaha xubnahaasi. hase ahaatee dowladda federaalka ayaa sidoo kale waxa ay ciidanka u diyaarisay dagaalanka Al-Shabaab iyo waliba in shabaabka laga saaro deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe. dowladda ayaa haatan waxa ay heshay diyaarado casri ah kuwaas oo ka qayb qaadanaya duqeymaha iyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee dowladdu ay doonayso in ay uga saarto gobolka Shabeellada Dhexe. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kormeer ku tagay markabka Uruj Ra'iis oo ku howlanaa baarista shidaalka Soomaaliya kadib markii si rasmi ah loo soo gabagabeeyay sahanka shidaalka xeebaha Soomaaliya. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay howlwadeennada iyo bahda iskaashiga Turkiga dadaalkooda ku aadan sahankan istiraatiijiga ah isagoo muujiyay in natiijada baaristan ay wax weyn ka bedelayso xaaladda Soomaaliya iyo xiriirka iskaashi ee labada tani waa guul muhiim ah oo xoojinaysa yoolkeena in Soomaaliya ay si buuxda uga faa'iideysto kheyraadkeeda una bedesho fursado dhaqaale iyo horumar bulsho. dowladda iyo shacabka Turkiga mar walba waxay hormuud u yihiin tallaabooyinka muujinaya in Soomaaliya la maalgashan karo ayuu ku yiri madaxweyne Xasan Sheekh war qoraal oo la soo dhigay barta Villa Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in dadaalka dowladda ee kobcinta dhaqaalaha dalka iyada oo loo marayo ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ah ee hodanka ay ku tahay Soomaaliya kuwaas oo dabooli kara duruufaha ka jira dalkeena ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee la soo dhigay barta Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya. maanta waa maalin farxadeed waxaan farxadda la qaybsanaynaa dhalinyarada gobolka Banaadir oo maanta fasalkii 8aad imtixaanku u soo gabagaboobay ubadkeegii mustaqbalkoodii iyo rajadooda ifiso tiradooduna ay gaarayso 4,639 arday laguna qabtay 108 goobood oo kala duwan oo goobo waxbarasho ah caasimadda gudaheeda. taasi waxay muujinaysaa inuu kordhay tirirka tayada iyo tirada ardayda caasimadda inuu batay ayay taasi ka turjumaysaa. waxaan rajaynaynaa sanadada soo socdana inay intaas ka bataan. waxaa mahad Ilaahay u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala. mahadda labaadna waxaa ku mahadsan hooyooyinkii iyo aabayaashii Soomaaliyeed iyo macallimiintii ku soo dadaalay ee gaarsiiyay 41,000 oo arday in ka tira ka badan inay maantay dugsiga 8aadka imtixaanka inay gasho. taas waxay taasina dareensiinaysaa ummadda Soomaaliyeed oo dareensiinaysaa in dadaal iyo juhdi ay bixinayaan waalidiinta Soomaaliyeed iyo macallimiintu. waxaan rajaynaynaa inay intaas ka sii bataan. sidoo kale anoo ka faa'iideysanaya fariintan waxaan fariin u soo jeedinayaa ardayda geli doonta imtixaanka fasalka 12aad inay u hoggaamsamaan awaamiirta wasaaradda waxbarashada inay ka foolajignaadaan waxyaabaha keenaya inay qaladaadka ay si fiican u dhageystaan mar iyo lababa si fiican inay u dhageystaan fariimaha wasaaradda waxbarashada ee ka turjumayso qofka ardayga inuu u hoggaamsamo awaamirtaasi ka turjumayso in imtixaankiisu wax noqonayo haduusan ka jawaabin fariimahaas uu ku dhaco fariimahaas iyo dignimahaas uu si fiican u dhageysan. intaas kadib waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa inaan sidaan oo kale in ka badan 50,000 ama 60,000 inaan ugu dabaaldegno Ilaahay ka rajaynaynaa. waxaa tihiin mustaqbalkii dalka iyo dadka. waxaan leenahay dhalinyaradaas maantay
fasalka sideedaad ka gudubtay ha ku haarina waxbarashada hayaanka waxbarashada ku jirtaan meeshii koowaad ku jirtaan waxa leen ka rabaa inay ka gudubtaan ilaa dugsi sare ee jaamacad aadaan dalkan cidna uma maqna adinka ayaa mustaqbal iyo jiil u ah dadaal iyo rajo iyo diila muujiya waxaan alla ka rajaynayaa inaan noqotaan kuwii dalkan iyo dadka wax ku soo kordhi lahaa waa maasantiin